waxaa looga jeedaa iimaanka iyo camalka saalixa inaad ku toosnaatid alistimraariya, inaad joogtaysid wanaagga, inaad noqonin qof weecweecanaya. carabtu inta badan waxay dhahaan ka rawagaani thaclab bay sheegaan, waxay yidhaahdaan baasha la yidhahda dawacadu waxay ugaadhsanayso toos uma abaarta bay yidhahdaan, way dhabacataa dabeetana way u warwareegtaa bay yidhahdeen sidii waxaan toos u soconin. waxaa laynaga reebayaa markaa weecweecashada, waxaa laynaga rabaa inaynu qumanaano oo diinta ku qumanaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano ilaahay intaynu rabbi kala kulmayno. qumanaantu waxay u baahan tahay dadaal badan iyo aqoon iyo cilmi. walidalik ba waxay yidhahdaan min طabci اlinsaan, aadanaha dhaqankiisa ama abuurkiisa waxaa ka mida bay yidhaahdaan atadabdub, sensidual inuu socdo, weecweecasho. bini aadamku bay yidhaahdaan dareemadiisa iyo noloshiisa inuu joogteeyo waa ku adagtay, wuxuu doonaba ha noqdo, shaqo ha noqoto, mashaacirta iyo dareenka iyo ixsaaska ha noqdo, nashaadaadka iyo activitygaad qabanaysa ha noqoto. bini aadamku joogtaynta inuu waxaa joogteeyo wax fudud maaha. soomaaligana isaga dhagaxba kaga adag. maxaa loo joogtayn kari waayey? kow, waa mawduc alimtixaan, waa meesha laynagu itixaamay ee la rabo ma ku guulaysanayna mise waa ku dhacaynaa. sidaa laynoo abuuray, waxaana lagu talagalay in layna itixaamo. aadanuhu wuxuu leeyahay shahwaatu nafs, waxyaa badan oo naftu ay jeceshahay. waxaa kaloo ku xeeran shayaaiin اljini walins, kuwa dadka lumiyo badan oo bini aadamkana ka mid ah, jinkana ka mid ah. bini aadam dadka lumiyo tiro badan ayaa kugu xeeran, shaydaankii shaydaankahabaa kugu xeeran. haddaba intaasoo dhan si aad uga guulaysan lahayd baa isweydiinta leh. waxaana laynaga rabaa inaan naftu inaga bixin ilaayo inagoo muslimiina mooyaane. laba aayadood oo fi kitaab illahi ku yaala, suurat ali cimraan iyo suurat albaqara. ilaahay muxuu leeyahy fi suurati albaqara, ya baniy in allaha اصطafaa lakum الdiin falaa tamuutuna ila waantum muslimuun. fi suurati ali cimraanna ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ila waantum muslimuun. falaa tamuutuna iyo walaa tamuutuna ila waantum muslimuun. ilahay wuxuu ina leeyahay ha geeriyoonina idinku aan muslim ahayn. geerida we don't know, garan mayno goora imanayso. adoo sii socdaa gaari ku jiidhi, ma wadnaha iskaa taagi, ma maalmaad soo bukaan doonta, garanaysa saaad u dhimanayso. mar haddaanad garanayn saaad u dhimanayso, macnaheedu waxa weeyaan noloshaada toosnow, ha geeriyoonin baa lagu yidhi adigoo maxay aan muslim ahayn, yay geeridu kuu imani. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ba fi suurati alxijrina ilaahay leey. rabbigaa caabud inta geeridu kaaga imanayso. haddaba maadaama ay noloshu sidaa tahay, waxaynu u baahan nahay inaynu in badan ku xisaabtanno war ma toosan nahay. in badan inay isweydiino aqoonta ah sidee loo toosnaada. in badan isweydiino waa maxay asbaabta kugu dhiiri gelinaysa ama kugu xejinaysa inaad toosnaato. weliba cajabta nafta waxaa ku tusi kara nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay basharka ku ka doortaya ayaa waxay saxaabadiisi tilmaamaysaa. umu salame iyo anas ibnu malik iyo waxa ay tilmaamayaan saxaabadii nebi maxamed ducooyinka nebi maxamed. umu salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu nebi maxamed ku ducaysta waa maxay, waxay ducadan soo socotay sheegtay. anas ibnu malik wuxuu isaguna leeyahy yuksir, nebigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay, ya muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinik. ilaaha qalbiyada gegediyow, ya muqalib alquluub, ilaaha qalbiyada gegediyow, habit qalbii calaa diinik. ku sug diintaada qalbigayga buu nebi maxamed ku ducaysanaya.
ilaahu weecweecashadaygaa ilaali, ilaahu isug. sida badan habaadka iyo istiqaamadu isku macno dhadhow bay tilmaamayaan. markaasaa saxaabadii waxay dhaheen yaa nabiy allahi aamanaa bika wa bima ji'ta bihi fahal takhaafu calayna, waanu ku rumaynay adiga iyo wixii aada la timiba waanu rumaynay, ma waxaad nooga cabsi qabataa miyaad nooga cabsi qabtaa wax kale? wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa su-aasha dad badan, rag badan baa isle haddaad war diintana waad garanaysaa, ilaahiyna waad garanaysaa, maadaa gaaloobaya ama maadaa xumaanaya. wadaado badan baa dhulkan yimi oo is yidhi waa riyaad saalixiinka iyo qur-aankaba waad soo dhigatay, ma gaal baa wax ku yeelaya. rag badan baa libdhay oo aan lahaynin imika meelay ku dambeeyeen. sababta waa maxay? naftooday kalsooni bideen. waxay is yidhaahdeen war waad isku filan tahay. badda se markuu dhumbaday wuu isku filaan waayey. markii badda nin waliba yimi isku filaanshihii waa la waayey. saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay, wixii aada la timina waan rumaynay, miyaad noo cabsi qabtaa? nebigu wuxuu ku yidhi nacam, ina alquluuba bayna isbacayni min asaabic illahi yuqalibuha kayfa yashaa. waa idin cabsi qabaa buu nebigu yidhi oo qalbiyada bini aadamku labada farood allay ku jiraanoo siduu doona buu u rogrogaa. siduu doona u rogrogaa waa maxay? haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa, haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa. markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey. sidaa awgeed ayuha alaxiba, bal u fiirsan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlayaa oo waxaa la leeyahay wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayrah waidan latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati wa ضicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira. subxaan allah. waxay ku dhowaadeen baa ilaahay leeyihi nebi maxamedow inay ku fitneeyaan can aladii awxaynaa ilayk, waxaanu kuu soo waxyoonay shayaaiin ljinniga iyo insigu inay kuweydaariyaan bay ku dhowaadeen litaftariya calayna gayrah, si aada noogu kor abuurato waxaanu kuu waxyoonay waxaan ahayn. hadday dhici lahayd inaad xaggooda usoo yaro weecatana latakhaduuka khaliila baa ilaahay saaxiib bay kaa dhigi lahaayeen. yani gaalada ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isku dayayaan inay ku lumiyaan. haddii aada markaa weecato dhankooda u weecatana walan good, waa lagu soo dhaweynayaa. nin qoyska ku soo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay. ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam walowlaa an habatnaak, haddii lala-yay inaanu anagu ku sugnay baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila, waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato. haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay, cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaad ka fili? sheekh iyo shariifba. haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo, ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa? ilaahay markaasuu leeyay idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati wa ضicfa almamaat. haddaad shaygaa raaci lahaydna waxaanu ku dhadhansiin lahayn baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahayd, wax nooga kaa gargaarana maad hesheen. haddaba ayuha alaxiba, waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaatha. carabtu waxay sheegaan habar mooyeene waalayd iyo in waxu dhinmeene, habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay, xadhkay soohi jirtay. gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto. marka maalin walba waa shaqo joogta ah. gelinka horena waa tidicdaa, gelinka dambena waa maxay? waa furfurtaa. ilaahay baa tii ugu maahmaaho ilaahay wuxuu yidhi walaa takunuu, ha la mid noqonina kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaatha, tii gelinkii hore tidicdaya toshay, gelinkii dambena furfurtay, taa ha ku biirina baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, dadka barh baa acmaal saalixa sameeya, dabeetana istus iyo ismaqashii iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya. qaar baa waddada saxa haya,
kadibna raadkoodii